gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliland mudane Maxamed Shukri oo shir jiraayad ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa shaaciyay waqtiga la qaban doono carwada toddobaad ee ganacsiga Soomaaliland waxaanu baaqo diray guud ahaanba ganacsatada Soomaaliland hay'adaha maxalliga ah kuwa caalamiga ah iyo dhamaanba cidii kale ee danaynaysa carwada ganacsiga Soomaaliland rugta ganacsiga Soomaaliland waxay ilaaminaysaa maanta oo taariikhdu tahay 20 bishii 8 in carwo sanadeedkii Soomaaliland ee sanadkii mar dhici jirtay ay dhici doonto haddii Allah yiraahdo 15 bisha tobnaad ee sanadka 2015 sida awadeed danayaasha carwadaasi sida guud ahaan ganacsatada Soomaaliland hay'adaha xukuumadda iyo hay'adaha caalamiga ah waxaan ku soo dhaweynaynaa inay ka qayb qaataan ka faa'iideystaan fursadaas marka loo soo degdego ganacsatada reer Soomaaliland waxay idin iman doonaa oo qabanqaabinta iyo hirgelinta ganacsatada rugta ganacsiga ay u idmatay oo xil saaran shaqaale ka socda shirkadda AOA Event oo shirkad Soomaaliland oo ku takhasustay qabanqaabinta iyo hirgelinta dhacdooyinka noocaas ah iyo shaqaale ka socda rugta ganacsiga oo isku dhafan la soo dhaweeyo